waxyar ay joogtay waxaan bildhaneen ayaa intii imaaday sabtida haddaan soo dhaafnay markaan imaaday isbeddelka wuxuu ka bilowday airportkii waxaan arkay waxa diyaarado oo joogaan waxa commercial flight waxa dadka maaragtay imaanaya dhoofayo aad iyo aad ku bedelay magaalada markaan imaadayna sidiisa lamid ayaan arkay waa idin hambalyaynaa insha allah dadaalka aad samayseen madaxda shacabka soomaaliyeed diyaar ayaa loo noqday waa la arkay dowlad la-aan iyo dowlad maaragtay meelayn jirin dhibka ay leedahay maanta laakiin waxaan idiin sheegayaa waxa inaga rajo fiican gobolka kuma jiro waxa la yidhahda happiness index waxa la dhahaa iska jira waa rajada iyo farxadda ay shacabkasta leeyihiin soomaalida ayaga ayaa ugu sarreeya hadda meeshan hadda horan afrika annagaa joogto waddamada kale oo dhanbo wixii idinka aada 30 sano ku dhow horteed aada soo marteen burburka aada soo marteen ayaa hadda mid qarka u taagan iyo mid asagana ku dhex jira iyo waxyaaba lamid ay yihiin marka waxaan rajaynayaa in horumar la gaaro aanan caadi ahayn waxyaabaha aada si degdega uga soo kabsan weydeen soomaalida waxaa lagu yaqaana inay yihiin shacabka mise ummadda mise dadka adduunka ku nool dadka ugu the fastest learners marxalo hadday galaan haddii maamaro lagu sameeyo haddii loo tashado dadka si degdeg markiiba u fahmi karo in loo tashado inay yihiin laakiin dee cadowgii idan hayay ayaa aada u ballaarnaa ilaahay baa wuxuu inagu beeray wadnihii adduunka ilaahay inagu beeray maadaama ay soomaaliya tahay wadnaha adduunka literally the heart of the world oo intana Suez Canal ay tahay intana ay tahay sea landskii mise sea routeskii u kacaya the major industrialized countries sida China iyo India iyo Japan iyo Korea iyo waxaa laga soo qaaday intana North America iyo South America Atlantica si fudud looga gelayo Southern Africa Mediterranean kii oo Suez la marayo dhan kastaba haddii loo eego ilaahay baa wuxuu nagu beeray wuu meeshii ugu fiicneed adduunka oo qoom lagu beero intaa waxaa wehelisaa khayraadka ilaahay uu siiyey oo waxa dhulka hoostiisa ku jiro carrada hoosteeda ku jiro iyo wixii badda ku jiray potentialka uu leeyahy oo biriga laga soo saari karo taa awgeed waxaa weeyaan adduunka nin wax soo ogol ma jiro waad garanaysaan 70-meeyadii cold wargii waxay noqotay Soomaaliya one of the victims of the cold war waayo shuucigii iyo kapitalistiga way ku tartameen markii u horreysay markii dambana way u heshiinay way iswataan waddan maskiin oo adduunka saddexaad oo labada quwad oo adduunka ugu weyneed ay u heshiiyeen ruushka iyo maraykanka oo ugu horreeyay Soomaaliya haddana ilaahay baa ka soo samata bixiyey rajada way fiican tahay waddan kasta hadduu hataa uu noqdo sidii maraykanka oo kale oo si kastaba dhaqaalo u leh oo si kasta loo odhan karo stable weeyaan laazim uu qabaa dad ishaystay iyo baarlamaan ishaystay iyo baarlamaan iyo maxay ahayd executive mise maamulka ishayaan iyo judiciaryga oo doonayaan inay to legislate from the bench waa push and pull waa iska typical phenomena in all meel kasta oo dhanba ay dowlad ka jirta middaa mar kasta way iska jirtaa waddanaasi aanan buuqbuuq iyo khalalaasan maaragtay siyaasad laisku haysta adduunka aanan ka jirin malaha tii idinkiina haysta maaldhowt oo kale maraykanka way haystaan Donald Trump Republicans Democrats maxay liberalskii conservativeskii Christian rightskii maxay ahayd waxoo dhan waa lis haystaa Australia baa lis haystaa waxaa laisku haystaa waddanka hadda idiin sheegaya Korea South Korea waa kii hadda madaxweynihii hore maxkamadda la soo joojiyey oo gabadhii aabbaheed buu ahaa ninkii Park Chung-hee la odhan jiray oo waddankaasaytu horumarkiisii aabba u ahaa
marka waxaad u aragtaan uun wax kastoo idin imaato caqabad wax sidii looga gudbi lahaa la fiiriyo oo pictureka weyn ayatiinka dambe iyo waddanka si uu meel u gaari lahaa mar kasta markii la isriixa oo la tartamo oo ay ku sigatay in maaragtay gebi laga hadaan laga dhaco waa in lais yidhaahdo warmehe waddankaa naga weyna let's pull back sidii maalidhata dhacday oo kale oo executivekii iyo jawaarigii intay heshiyeen maaragtay wixii ay sidii la rabay ay u sameeyeen dowladnimo waa cunug yaroo dhashay weyaan oo laisku haysto oo nin kastoo aabba inuu noqday uu doonayay gabar kasta inay hooyo u noqotay doonaysa wiilkaygii waa liga xaday oo aniga aan dhalay oo anoo markaa kursanhayo asagoo 7 maalmood jira waxaa liga xaday asagoo sanad jiro waxaa liga xaday way iska dhacdaa adduunka meel kastaba hadda ka hor waxaan ugu maahmaahoon idhi arrinta marxaladda dadda Soomaaliya ka jirta waxa weeyaan hadda ka hor qiso dhacday oo nin amiir ah oo madax oo boqor ayaa 2 gabdhood oo isku haystaan halka cunuga loo keenay ana waan dhalay bay tiri ana waan dhalay bay tii kartay berigaana DNA waxaa ma jira markaasuu yidhi tanna waxay sheegi oo maalinkaas maalmahana waa isku mid wixii way isu eg tahay qof kasta markuu hadla waxaad moodaa inuu gartaas ay ku taagan yahay sida badanaa ay u dhacdo qalalaasada iyo iska horimaadka siyaasadda ay u dhacdo boqorkii wuxuu yidhi warka fudud oo idinhayo waxaa weeyaan cunuganayto waxaan u qaadanaynaa toori baan u qaadanaynaa 2 dhaxda ayaan kala goynaynaa nusna adaan ku siinaynaa nusna tan kalaan siinaynaa waa 2 gabdhood isku haysa tii dhashay oo dhabta aheedna waxay tiri nus ima siinaysiida iyada wada sii bedelku cunuga dhiman lahaa ha korsatay iyada si unbay hadhow ilaahay uu ka dhigi doonaa inaan aniga dhalay waan ogsoonahay tii kalena waxay tiri hana loo kala gooyo cunuga oo 2 dhaxda ha lagu dhufta iyadana nusan la siitana nusan la sii horta dowladnimada waa sida ninka wadaniga oo meesha ugu fiican jooga marka la iska qabsado waxaa loo baahan yahay in la tanaasulo kuwana ay wax ogolaadaan kuwana wax ogolaadaan meel dhaxal la iskugu imaado laakiin xariga aan kala goyna haddii la yidhaahdo oo meesha ugu dambaan isla gaarno haddii madalig iyaga sooma soo bixin waddankaasay waxaan aada ugu faraxsanahay testigii mise imtixaankiina soo maray maalin dhowto inay sidaasoo kale ay ku dhacday oo 2 dhinacba lagu heshiiyey oo maaragtay laga gaaray xal hadda badbaado waddankana u noqday ayatiinkiisana rajada soo kordhiyay oo weli ay si fiican u socoto waxaan idiin sheegi odaygii maxamed siyaad bah ilaahay u naxariistay wuxuu odhan jiray soomaalida wax habaar ku noqday marka dawar iimaanka laynaga qaadbi dhihi jiray marka waxaa uu ka keeni jiray dhaqasho iyo wax badan oo xanuun oo asaga hay waxaan u malaynaya tiibaad markaa muddo dheer ilaahay uu dhab nooga dhigay oo soomaalida ilaahay iimaan ka qaaday laakiin alxamdulilah hadda ducadii waa in la badiyo ilaahay iimaanka ku soo celiyo adigoo madaxa waa inaad u ducaysaa dadka kale ummadaha kale oo islaamka haddaad aragtaan sacuudiga laga tegey xarabka maalin kasta waa looga duceeyaa dadka xaakimka oo xukunka hayo mise maamulka hayo anagana kuwaa naga mar kastaba haloo duceeyo waan u ducayn khayraadka ku jira soomaaliyana waa tii haddaan idin sheegay annagana waxaan nahay dad badan baa waxay odhanayaan faarax waa wadani faarax waa nin soomaaliya faarax waxyaabo badan oo maaragtay oo ammaan ah warheedhaha nafti baa noo geysay idinka haddii waxba noqon annagana waxba noqoneen marka annagaa isu dagaalamayna idinka kelina ma dagaalamayo annagaa naf oo doonayna inay sharaftiina soo noqoto sifa annagana meelaha aan ku noolnahay gobollada wadamaha kale ka midka oo Soomaali ay maaragtay ay wada degan yihiin in maaragtay aan sharaf iyo wanaag iyo ixtiraam iyo wax badan oo maaragtay nalooga eebsan baa jira haddii ay waddankan uu maaragtay uu culudiisa iyo sharaftiisa iyo xooggiisa iyo magaciisa iyo qafkiisa soo cesho marka waxyaabahaasayto ayaan maaragtay aanu ku xisaabtamahayn annaga
فعكروا إني الشيء يا مانتا واحدا أمام قبل كمتشير هدي جيران ويري هاد ويري سنة دار كسعتان وحنا مسنا اللي حبلو دون اللقان حوين نسكب الدليل دون الصوماليا الله يسوس تبرو حال كنك دقة مركز اللي قلت بس إيماجنسية اللي قلت oo dagaalka lagu jiro sida maartay xaraasho oo dimuqraasiyada ay u shaqeynaysa maxkamadaha u shaqeynayaan markuu wadanka uu degan yahay ma dhacayso Mareykanka markuu ku duulay Ciraaq wadan yar oo adduunka saddexaad oo maartay Mareykanka 5,000 oo jeer uu ka xoog badan yahay haddana wax kasta oo dhanba waxay noqotay inay dawladda la shaqeeyaan baarlamaanka dawladda la shaqeeyo media ay dawladda la shaqeeyaan embedded wax dhaha lagu sameeyo wixii qoran laha bay qorayeen wixii dhabta habeen qoreen waxa qoran lahaana waxa weeyaan wixii dawladdii iyo qarankii iyo maartay magaciisa iyo sharaftiisii lagu difaaci lahaa hadduu dad badan ka dhinto dadka way dhinteen lama oranayo wax kastoo dhanba waxa weeyaan in run laga sheegay qasab maaha hadda ka horba waxaa lagu yidhi in madax ahaaba wuxuu ku yidhi dadkiisii wixii qola xabashiye ay ku wareegayso gobolka Soomaalida ay degan tahay ay hub doonayso waayihii maaragtay ay gumaysi ku soo rogayeen ay wixii war dawlad baan haysaa ciidankeedana naga xoog badanay hubkana qarsada hana sheegina iyagoo joogaan meesha ayuu ninkii madaxda ahaa waxaan maleynaa inuu awow yahay inuu inta fadhiyo maanta ayaa wuxuu yidhi caawi inuu inta fadhiyo wuxuu yidhi annaga hubna ma hayna waxba ma hayna waxaan nahay dad raaciyad ahoo maaragtay idin aytan baan nahay oday kaloo asna adeerkiiba wuxuu yidhi oo sheekh ah anigu waan soo gaaray odayga tuusan dhiman asagoo Ethiopia ka imaaday oo nagu yimid soo gobolka Soomaalida ka yimid oo nagu yimid Nairobi Garis wuxuu ilaahay ballankii runtaa ilaahay ugu og yahay anuu mid baan haystaa buu yidhi laakiin iga halaabsan yahay inay hagaajin karaan bal ii weydi wiil ninkaas inta awooga wuxuu ku yidhaahday oo runtaada waa mid doona leh biyo runtaada waa mid doona leh lama baahna maanta runtaas macnaheedu waxa weeyaan mar kasta runta looma baahna dowladnimada lagu sheegay waa khadaaca dagaalka waa khadaaca nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi alxarbu khadaaca fasameen marka waxa weeyaan waa dhagar iyo sir iyo wax kastoo kale weeyaan dimuqraasiyaan ku shaqaynayna waa in sida la sameeyo waa inaan isku sii daayo wadamo jiraan oo wadanka may gobolada horta magacyaha ka bedela meesha maamul goboleedka aad ugu yeertaan madaxweyne waxaad ugu yeertaan governor sida anagoo kale waayo wax aan adduunka ku shaqaynayna Soomaali kale kuma shaqayn karto dastuurka iyo nidaamkaana waxaa ka shaqeeyey inta Soomaali cadawgeeda ahayd ayay ahayd governorka annaga hadda joogo oo gobolka maamulo base governorka maamula gobolkii ugu weynaa Mareykanka oo California la oranayay intuu iska soo tuulama imaan kara xamar oo madaxweynaha intuu la fadhiista farmaajo la sheekaysta base prime minister khayre base Nairobi intuu imaaday Uhuru iyo Ruto intuu iskala sheekaysta iskama tegi kara maya lama xiriiri karo wadan kale oo ajnabi isaga oonan ka haysanin permission ka haysanin dawladdiisa wasaaradda arrimaha dibadda madaxtooyada ka haysanin asagoona uusan caddaynin oo justificationkii oo dhan uusan sheegin sababta u tegayo waddan kale hore tegayo oo haddana aan lagu biirinin wafdigiisa dad ka socda dawladda meeshana in jaahil lahoo aan aqoonna lahayn oo shalay wuxuu yahay ilaahay og yahay baa ordi odhanaya imaaraadkan la soo sheekaysanaya imaaraadkan cadowga Soomaalida iska cadda أنا سيب بدتين أنا يدي شيء أنا أبدأ مدحوين أنا كل تير كان صار الله هل كورة كم تجين خائن الوطن سيتا في your own state وطن عدو وهو وطن كذا ربنا كذا هو ذاك عطى كل جو أو كم يستو أياد أرتي ساول ده هي وحرير بالله صغيرنا هذا صعطة أنت هذا صعطة أنت كصعطة الرمانك السوق جديد الشرعي انت حتى ارجع شيء اورمايو قصب ويان ان لغا قاطو
ogolaasha wasaaradda arrimaha dibadda xafiiska madaxtooyada head of civil service shaqaalaynta kanu weyn shaqaalaha inuu u ogolaada ninka dhoofayo annaga hal nin oo civil servant oo technocrat oo ka bixi kara waddanka ma jira isagoon aan la siinin aanan la siinin permission to travel outside clearance baldhaa so clearance la siin wiilkayga waa dhakhtar waa consultant surgeon xasaskayga mid kamida waa dhakhtar ma bixi karaan waddanka kama bixi karaan iyaga oonan maarata hataa xajkii cumrad markay kaceen waa inuu kacaan wasaaradda oo la siiyo clearance iska daa ninka weyn intaas oo wasiir iyo wax kala mid iyo nin baarlamaan ku jira maayo you have to inform marka hadda annagana dhibaatooyinkaas ay idinkeedan haystaa Soomaali haddii aad tihiin waa in xal loo helo waa in xal loo helo ina Zaid محمد زايد والله أنا خليفة نهيان ويلكيسة سما كان هذا بالدبي هاي أنت وحول فدية ما نحسن عليك ما كتك حال وضع فقر الصومالي اللي بيجري و الديفايد ديسكريبشن وحتى الله يغفر الله كرما بحاله الدون كنيته ودولتها يكون شقيان وحكب احسن من انا وكل شقياننا ما لك تعذر مالها ديك ودم ودكينا سكتة عدونا كسكتة عدو الدبدة عدو وكل شقيسنا يقودها ما يلكم بصد ما يلا السماري كرمالها halkan tarkanta ku saartan ku day kartaa maxay ahayd galmudug orodayda inta laga baxay ilaa iyo ma la gaari karaa meesha maxay ahayd magaceeda cadaada ma lagu tegi karaa iyo Samareebi ma kaliya ba hadda wadada Soomaaliha al-shabaab ku bixinaan meel kasta iyagana cadawga Soomaaliyeed iyo ajnabi ku adeeganayaan intii laga baxay Ismaaciil lama tegi karo maxay doobli hatta afadoo lama tegi karo dhaxday ku jira مهل اسمها فكرة ملها لكن هذه النبى اسكو شيء امام الجولات وري هذا كده انتو كنوفو مغالada نيروبي u tago bas xamar u imaado oo diyaarad uu kale wali ay hadana diyaarad kale ku dhoofay oo ajnabi la soo tashanay oo la soo sheekaysanay waxay noqotay wadankii ma sidii South America oo meelihii drugs ka laga shaqaysanay oo drug lords ay joogi jireen badadii way dhamaatay kaarba ku dhacday oo environment Soomaaliya waxay noqon doontaa laba degaan desert way noqon doontaa sanad ku socdo لحوشي بقى أرسلنا هي العربتي وفوح من سري كربسار هاي استسيد دمركي أوكل عربي إنه وكون صدق هذه بحياة لحوشي هذه جيدة هذه كوكا سنجرينا ولا تدبرين هي جيدة أو على صارية على كيف يدوم على صارية أو الناس الدفاعية كل قبل الصومال هذا بلغدو فينا هذا كلام دونا هو ضغنا هذا بحياة جبل هو ضغناتي أركب حنين شيء waddankiina soo ceshada waddannimaa loo baahan yahay anigu inaan ma oranayo nin jeclaysi shaqo ku malihi aniga sheekh shariif waan soo garab qabtay berigii anigoo rajo badan ka qabo maxaakiimta ayuu weynaa حسن الشيخ مركو إيماني تعليمتي شغف عن كقبتين الصقي من هذا الاتلاهي ونحرسون صاحبي عبدالدون لوريد شري فارح عبد القادر فهد كان هذا يضد وفركي عن اسبرني وكان اوغي ماضي برماجي مركو برايم مينستر كهايو عيد مدى سبتي عن نوع عوية شيء فهد اقوم معنو لي اسوير ولا باتن ومركا شري يعني اسبرني ومارتي وشقي شري وليك كلا دودوه الله يبني هذا حسن خيري كشقيني ماشي أنا اللي قصوا دورتين ده بس هو نويجي ريفيجي كاسل كشقيني يوم إنك استمركي وحان أريجو مركي ورسكو أفكارن اسكو قرني رجدي عن قبي هدي وكدو منادو وميل كلا علي محمد جيدي صاحب عنه معانا هنيك علي محمد جيدي انتو كنا دعينين انت هذا فدير وكرسي وقدقو
markaasuu cabdullaahi yuusuf wuxuu ugu yidhi ninka hadleeda kursiga wadda cali maxamed geedi waa daarood cali maxamed geedina waa hawiye furaastinato 4.5 baa lagu sida markaasi u geliye marka dambena ilaahay baa noo fududeeyo ninkii marxuumka ahaa maxamed dheere ayaa ogolaaday intaan la hadlay anigaa ka soo saxay weliba uu soo galay mid kasta markaan arkay basta shaksiga aan u arkay haddana inuu qaanin waddan yahay meesha baa isku kaadambaysay anoo tafaasiisheeda gelin kullina nin kasta sibuu ammaanan yahay cabdullahi yuusuf hadda kahor geri waan ugu tegay anoo soomaali doon iyo sharati inay soo noqoto xabashidii markuu waddanka soo gelay nocol baan noqonay markiiba cali maxamed geedi markaa arkay inuu xabashida hoosta ka jira hadda nocol baan noqonay waanu kala tagnay markiiba xasan sheekh maxamed markuu ka tegey jijigo oo ay noqotay ninkii qaranka xamar ka tegey nin gobol kale haddana tegey waxaanu yidhi sida xabashida ay rabto xamarna waa un gobolkii lixaad gobolka toddobaad bay caynkaasaan kuwan hadda waxay kaga duwan yihiin oon isku ognahay oo hadda inoo muuqata ilaa ay haatan xatooyana kuma aragno oo qarankii maaragtay hantidii dadweynaha oo lagu duunayana ma aragno isbeddelna waan aragnaa ciidankii baa dhismahayaa waddankii baa kor u soo socdaa sharaftii dibadda wadamihii gobolladii meelihii la iibsaday dekedihii wax kasta oo dhanba oo dad ajnabi u qaatay ay daba socdaan wax badan oo ku jeclaan ayaa hadda iga muuqataa waxaan isleenahay aan garab siina annagana aan garab soconno ilaa guusha rasmiga la gaaray waxaanan ka ahayn danta ummadda soomaaliyeed oo annaga nawalaleynaysa ma jirta iyagoo dhan laakiin inta aan rajada ka qabno danta ummadda soomaaliyeed garabna oo noqonayna waana garab istaagayna ummaddan oona sheegayna waxaan leenahay war kuwan xoogaa lagu jeclaado oo kuwii kale ay kaga duwan yihiin baa jiraaye bal horey aan u wadna insha allah ilaahay inuu guusha uu iyadoo kaamilan oo dhamaystiran aan ku helno hadalka idinguma dheerinayay waa wakti dambe weeyaan adiga raalli ahaanaysaan nin waxaan ahay maaragtay inta badana wuxuu sheega asagoo la gabanin sheego laakiin ilaahay baa iga sarreeya wejiga ilaahay baan idin maartin ilaahay lama maran gashado inaad run sheegi ma ogiye wanaagga soomaaliyeed baa aniga keenaa intaasna iga qaylisiinaya wax ka duwan intaa ma jirto waana aragnaa hadda light we sing light at the end of the tunnel insha allah biidni illahi albaari annagana noo soo ducee waddanka annaga maalinkii aniga aan baarlamaanka soo galay 92 maanta dhexdooda isbeddel badan baa ka dhacay waxaan noqonay dad hadda waddanka wax ku leh baan noqonay berigi hore waxba kumaana lahayn dad la xukumaanayaan oo laleeyahay ilaahay ka sako meelaha kale oo soomaalida dhibka ku haysatana ilaahay baan u baryaynaa kuwii hadda etoobiya inta hore oo dhan gumaysi ay ku haysteen haddana nin oramaa imaado asagana ummadiisa la gumaysan jiray oo la addoonsan jiray waxaan isleenahay kuwii hore uu ka duunaan doonaa hadduu ka duunaado waan soo dhaweynana hadduu ka duunaan weynana meeshii baan kaga wadayna asaga baan iska celin laakiin soomaali dad maaragtay wiig oo igu soo orade maaha insha allah qabkina wuu soo noqon alool adeega kii la yaqaanay buu ahaa wax abuurkana waa la yaqaanaa muddada ugu yarna waxay noqon doontaa waddanka gobolkan oo dhan ba ugu taajirsan oo uguna xoog badan insha allah biidni illahi albaari markaa saasaan isku ognahay aad baad umahadsantihiin cashadan